السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي سو دواada halkan waa channelka Faaliya waa channel kaliya ka heshaan warbixinada iyo xogta ugu muhiimsan ee ku saabsan xerooyinka Dadaab. Maanta waxaan idin hayaa xog muhiim ah. Xoggaas ah sida kaararka dhalashooyinka loo baahan yahay oo tirkoobka lagu darayo iyo kuwa lagu dareen say kala yihiin. Arrinta new blog oo kala go'day qaarna la soo dhajiyay qaarna la soo dhajin maxaa kalifay jadwalka tirkoobka Brito Arbaca saddex xara iyo dowladda Kenya oo sheegtay in ay Dadaab waqtiga ay u qabatay ay wali taagan tahay ay ka noqonin oo arrintii 2022 bishii 6 2022 ay qabatay ay ka noqonin oo ay meeshii wali taagan tahay. arrimahaas oo cusub ku soo dhawaada halkan waa channelka Faaliya. haddaan idinku bilaabo arrinta new blog. arrintaasi new blog waxaa la soo dhajiyay new blog sida BB iyo BC tirkoob inay galaan, laakiin new blog laba qayb u kala qoran nafteeda. markii dhaatay aan la tago waxaa dhacday in dad badan ay tirkoob loo yeerinin oo 15 14 17 19 leh oo dadka kale ay galaan dadna laga waayay liiska dhan. waa la yaabay markii la yaabay UN aan galnay oo waxaan dhahnay maxaa dhacay oo see ku dhici karta dad in soo dhajiyo isku blog galantana la soo dhajin. waxay dhaheen new blog waxay u qoran tahay BB blog blog BB kan waxa qoran NBB NBC intaas ku jirta. marka wixii N waxa la soo dhajinaa asbuuc dambe oo isniinta wixii BB bis ay qoran tahay BC bis ay qoran tahay ayaga waa la soo dhajiyaa koon hadda galay. laakiin hadda magaca ay ku jirta NBB NBC ay ku jirto taasi waxaa la soo dhajinayaa asbuuc soo socdo aan gali doono. dad badan oo la garanayo oo BC iyo BB degan ayaa kaararkooda waayay meel ka galana garan waayeen oo ku rafaadeen shalay maanta. marka asxaabta ogaada in NBB iyo NBC ay yihiin isniintii. ninkii maanta magaciisa la waayay oo laga waayay meesha kaarkiisa waa la soo dhajinayaa UNHCR waa ka warqabtaa si ay noo sheegeen. arrinta ilmaha dhalashooyinka goobta tirkoobka looga darayo ilmahaasi waa ilmaha lagu darayo waxay yihiin ilmaha isbitaal ku dhashay oo ah 2019 iyo 2020 ayaa lagu darayaa. 2019 2020 2017 iyo 2016 waa la diiday. 2017 iyo 2016 waa la diiday waayo 2016 xafiiska lagu daray 2018 iyo 18 waxa lagu daray xafiiska hatta 18 waa la diiday maanta xafiiska lagu daray. waxaa la marka dadka 18 dad baa igu qasbinay UNHCR aan weydiiyo 18 waxa laga yeeli doono maadaama dadka la diiday si ilmahooda looga daran lahaa. waayo dadka meesha joogeen dad waxay ahaayeen qaar channelkii ku xiran dadka C7 qaar ka imaaday asxaabta waxay dhaheen horta noo weydiininkan marka si nagala darayo ilmahan anaga UNHCR waxaan siisay letter registration nagula sii diiwaangelintii dib u dhacday. marka seen nagala daray ilmahan marka waxaa la dhahay markii tirkoob dhamaado xafiiska aan imaan doonaa waxay sheegi doontaa si kaarkaagi dhalashada ay u soo dahday inta waxa unugaaga guriga u joogay ugu dari waysay UN ay yeeshay hadii MS ay kugu dahaysay hadii xabada ku dhashay baby registration markii diiwaan gelinay ay soo daaheen su'aalaha lagu yeeshan doonaa wixii unugaaga kaar u reedi iyo wax baa lagu weydiin doonaa. marka dadweynaha u sheegayna in ay isdajiyaan 2017 in looga daro doono xafiiska tirkoob markuu dhamaado oo markaa kadib ay noqon doonto. laakiin hadda waxa lagu daray waa 2019 iyo 2020 ayaa lagu darayaa intaas lagu darayaa. marka inta kalena ayagana waa imaan doonaan. dowladda Kenya waa ogeeyeen tii bari ay noo qabatay taan qaxooti 2022 bishii 6 30 waxay sheegeen in ay ka noqonin arrintii ay sidii ay u taagan tahay, laakiin la rabo in qaxootiga loo sameeyo xal waara sida repatriation oo toos loo qaado dadkii ku dhex milmaan oo Kenyan in deganaansho la siiyo in la siiyo iyo in maxaa la dhahay resettlement loo qaado oo buufs la siiyo oo dibadaha la geeyo aysan ahayn qaxooti oo markasta qaxooti iska ameel iska tuuran inay ay jiri doonin. UNHCR inay xal waara u keento dadkan halkaas oo ah in dilkoo dib ay u celiso in ay siiso diiwaangelin oo Mareykan ay u dirto mise Ingiriis meelaan Sweden loo geeyo ama deganaansho la siiyo oo dadka meesha dadka kamid ay noqdaan. intaasi ay xalka ayaa marka waxay dhahdeen Kenya arrintaasi meeshan ayaan wali kama noqon. arrinta meeshan ugu baxo waa arrin siyaasadeed siyaasadda ogtiin Kenya iyo Soomaaliya marka siyaasad waaye marka waan arki doonaa wixii ka soo baxo.
haddaan ku bilaabo jadwalka tirkoobka xagga dheera beri waxaa gelaya F9 iyo F10. F9 toban le, sagaal le, sideed le, toddoba le, lix le, shan le, afar le, saddex le, laba le, kow le. F10aad F10 shan iyo toban le, afar iyo toban le, saddex iyo toban le, laba iyo toban le, kow iyo toban le, sagaal le, sideed le, toddoba le. haddaan tago Ifanura waxaa gelaya saddex xaafad C25, C26, C27. C25 haddaan tago waa toddoba le, lix le, shan le, afar le, saddex le, laba le, kow le. C26 oo C26 laba toban le, sagaal le, sideed le, toddoba le, lix le, shan le, afar le, saddex le, laba le, kow le. C27 lix toban le, shan toban le, afar toban le, saddex toban le, laba toban le, kow toban le, sagaal le, sideed le, toddoba le, lix le, shan le, afar lu ku egyahay. C27 ilaa afar la beri gelayso. haddaan tago xarada dhagaxley beri waxaa gelaya C7, C8 iyo C9. C7 oo halay maanta ka dhinaa, C8 iyo C9. C7 haddaan tago shan le, afar le, saddex le, laba le iyo kow le. C8 shan toban le, saddex toban le, laba toban le, kow toban le, sagaal le, sideed le, toddoba le, lix le, shan le, afar le, saddex le, laba le iyo kow le. C9 laba toban le, kow toban le, iyo sagaal le. C9 al bilaabay beri dambena waa jimcadii waa C10 iyo kale. marka asxaabta waxaan u sheegayaa in ay arintaas ay ogaadaan, ay ka warqabaan marka sidii wax loo sameyn lahaa oo arimahaas ay u socon lahaayeen oo maxaa lahayd tirkoobka si fiican u socdaa. maanta waxaa la sameeyay arkeen in dadkii la yeeriyay oo loo yeeri dadkii kalena la dhahay maalintii imaada ifo xaga dheer waxaa la 5 saac 6 saac way dhamaatay tirkoobka. aqaada ugu weyn oo dhagaxley dadka iska imaanay dad baa bulbad ka imaanay, dad baa Amerika iska imaanay tirkoob soo tuurina ayagoo tirkoob lagu wacay. maxay doonaan dadkan UN idin bahan dadka curyaamada dadka kala awoodiina fadlan ka day curyaan waxaad sameynaysaa waa qoraysaa oo u sheegaysaa makaarka ku jira dadka kala keen asagoo sheegay waxa dhigi UNHCR ninka curyaan waay waa inta stareer saaran waa laga qoraa list UNHCR ayaa dan kale guriga ugu tagay say sheegtay dadka dhan guriga waa la qorayaa waa lagu tagay guriga lagu tagay. marka arrin kale oo jirta oo marka tirkoobka marto oo meesha manifest laga qaadanay aad tagto waxaa fadhiyaa meesha chiefaf oo ka socdo government of Kenya dowladda ka socdo. jiifkaas maanta maamo aylan waday oo tirkoob amariyo wuxuu dhahay maamadan kibaana may leedahay. marka ani mayaan dhahay maamo kala dhahday anaa kibaana leh. marka waxaa la dhahay Kenya kibaanahada Kenya la dhahay manifest Kenya la dhahay waa laga qoray. marka waan weydiinay waxaan qorayso maxayna la dhahay. marka wuxuu dhahay haddii ilmahada qaxooti ay yihiin adina Kenyan aan tahay ilmahada ma yeeshan doonaan waxaa la dhahay ma yeeshan doonaan xaquuq qaxooti ma yeeshanayaan. marka si xaquuq qaxootinimo ku yeeshaan adi faraha dowladda codso in faraha laga bixiyo qaxootiga Kenyan asal aan noqoto ilmaha xaquuq si u helaan kaarka laga gooyo oo codsi aan qadan waxa soo dhiibay dowladda Kenya ayadana loo gudbin doona. marka dad waxa jira vetin imaan raaw dhahay oo soo sheegay in vetin imaanayo oo dadka la wareysan doono. dad waxa jira oo dhahay oo manaaskii u weynayo oo rafaadsan oo kibaanda kor saaran oo asoo kibaanda gelin dad attempted bis kibaanda isku day inay goostaan oo u soo bixin ayagana kibaani uu saaran yahay way ku rafaadsan way buuxan. marka dadka dhan waa loo kala bixin doono vetin imaan doono waxaan waa la qorayaa. marka wuxuu dhahay ninkii oo maxaa lahayd kibaana leh oo kibaanihiis rabo inuu faraha qaxootiga ka baxo ha isqoro ha asoo inuu faraha qaxootiga si Kenyan u yahay ha isqoro kadib dowladda loo gudbinayo dowladda iyada umaanay oo guddi soo dir doonto oo faraha qaxootiga laga bixin doonaa. marka dadweynaha u sheegay nin kasta ninkii oo rabo in Kenyan uu ku adkaysto oo faraha qaxootiga iska bixiyo say sheegeen nimanka meesha fadhiyaan ha isqoro duwaankii warqadaha Kenya oo meesha yaalo oo isku qoray ha isgeliyo. waxaa loo diri doonaa national government dowladda loo dina soo sheegay ninkaas anaga ma ogin laakiin soo sheegay waay oo waxaa la sameyn doonaa u dhahay lista sameyn doonaa vetin sameyn doonaa dadkaas farahooda dib baa loo fiirin doonaa warbixin baa laga yeeshan doonaa document loo qaadi doonaa dhalashadii iyo wixii dhan macluumaadka laga fiirin doonaa sifa loo ogaado inay Kenyan yihiin inay Kenyan ahayn iyo waxa rabta lagu sameyn adin xoog u leh malaha sharci ka qaaday. laakiin waa in ilmahada iyo kulli qaxootiyiin adin Kenyan aad tahay oo laga yaabo in ninka Kenyan yahay misabarta Kenyan ay tahay isku jiraan waxaa la rabaa ninkaas xaqiisa inuu qaato isagoo nagu dhahay. laakiin meeshan lagu ma sameynayo wax dib loo dhigay waayo oo la qoraayo oo list loo imaan doono. asxaabta warbixinaha cusub waan soo socdaan waa heli doonaa insha Allah inta in ka badan. haddaa ku cusub tahay channelka Jafaliya Dadaab subscribe sar no like gare no share gare. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.